aadna ugu farx markii la aqbalay xitaa ani ahaantay nafsad ahaantay ma aaminin markii la waa aqbalay xitaa waxaan isku dayaynaa qof mid walaalkii saaxiibkii aan waco kiya ii shay in la aqbalay markaas kadib la aamin inuu leetri ii soo baxay waa Cabdirasaaq Xaaji Maxamed oo maalmo ka hor helay aqbalaada horudhaca ah ee barnaamijka Baqtiyaa Nasiibka ee afka qalaad lagu magacaabo Green Card Lottery ma ahan markii ugu horeysay ee uu dirsado balse uma aysan suuro galin in dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku guuleysto dadka Yurub aad hadda u xiiseeyaan aad wax u xiiseeyaan Mareykanka iyo Canada hadii la lottery waxa ta jiro qof aan hadda maanta Muqdisho ku nooleen oo xareysan ma jiro dadkuna wada xareystay xataa iska daa Muqdisho magaalooyinka qaar iyo wadamada qaar sida Kenya iyo Suudaan iyo Tanzania xataa wada xareysteen wixii Soomaali ku noolaa sadarta ay ugu daliina xareystaana aadna ugu farx markii la aqbalay xitaa ani ahaantay nafsad ahaantay ma aaminin markii la waa aqbalay xitaa waxaan isku dayaynaa qof mid walaalkii saaxiibkii aan waco kiya ii shay in la aqbalay markaas kadib la aamin inuu leetri ii soo baxay maya 7 sano sanadkan ugu 8 7 sano hor waa soo xareystay sanadkan 8 aha mana aaminsaneen inuu ii soo baxayo alla ma hadig waa haduuba ii soo baxay saddex mar Kenya joogay inta kale laag Muqdisho joogay inta wada xareystaa aad ba u kacsanahay una faraxsanahay Allah inuu mahad celinaa maadaama uu lottery soo baxay waa mid si nasiib ah sanad walba ay kumanaan kun oo qof oo bulshooyinka caalamka ah ay ku galaan dalka Mareykanka kuwaas oo marka ay Mareykanka tagaan xaq loo siiyo inay shaqaysan karaan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa xareystay sanadkan balse intooda badan nasiibku wuu ka weecday qaar kamid ah ayaa kula kulanay jidadka caasimadda mid kamid ah waa Cabdirashiid Maxamed ruuxantii saudhanay dhamaanteen Soomaali intooda badan waxa way reer buufisaas ka nahay dalka oo shaqo yari aad u baasan tahay dhalinyarada oo dhamaan oo shaqo aan haysanin intooda badan dhalinyarada waxay jecel yihiin inay wadanka ka tagaan ama ay aadaan wadamada sida Yurubta sida America sida Canada wadamadaas inay tagaan ay jecel yihiin sidaas daraadeed aniga hadda ma bilaabin lottery hadda ma igu horeenin waxa waayay 10 sano markaas soo qaangaara ilaa hadda wax xariisanaale hal marna ma ii soo bixin welina marajo dhigan waxa jeclaan lahaa inay mar walba xareysto oo mataqaana ilaa nasiibkay ka helay baqtaan nasiibkaas inaan xareysto inta aan xareysan ka hor rajada nasiibkayga 100% ayuu ahaa inaan heli doono mar un maxaa la ina baxo trip ka horeeyay oo xareystay xitaa waxa soo inaan ku riyooday anoo baxay oo mataqaana dadka ma salaameeyay mataqaana bye ii sameeyay oo baxay oo America degay oo mataqaana oo Los Angeles joogo ku riyooday haddana waxa waay wali niideeda ma ka bixin mar un tago doono America maxaa yeelay qof walba waariyadiisa inuu tago mar un America marka laga yimaado inta diidmada u soo baxday iyo inta kale ee heshay waxa kale oo jira dad naawilayay inay xareystaan balse ku seegay inaysan garanaynin sida loo xareysto Ayuub ayaana kamida way waad sababtoo ah ku caawiyaa way anna madaganaado inay caafimaad inaa waayado ku caawiyaa away caafimaad tan igantan inaad ii daaweeyaa iyo adabka sida aan wada ognahay barnaamijka loo yaqaano Green Card Lottery waxaa jirta malaayiin qof oo dunida caalamka ku nool oo xareysatay sanadkan dadkaasi waxaa kamid ah Soomaalida oo intooda badan la sheegay inay tirada ugu badan ee Soomaali ay xareysteen barnaamijkan Baqtiyaa Nasiibka ee lotteryga balse waxaa jirta warar sheegaya in Soomaali badan ay u soo baxday oo nasiibkoodu uu noqday in la aqbalo balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay dadkaasi si dhib yar ma lagu aqbali doonaa oo ma gaari doonaan Mareykanka balse way ku adkaan doontaa